Jack wuxuu ku dhashay Hangzhou ee dalka China 1964. Haddaba Jack wuxuu jeclaa inuu barto luqadda Ingiriiska oo wuxuu sameyn jiray dadka dalxiisayaasha ah ee dalka yimaada ay wuxuu noqon jiray mid wada oo haga si uu uga barto luqadda Ingiriiska. Haddaba Jack wuxuu galay jaamacadda oo wuxuu ku dhacay 2 jeer jaamacadda ilaa ugu dambeyntii la diiday jaamacad qaadata. ugu dambeyntii uu helay jaamacad qaadata oo wuxuu bartay luqadda Ingiriiska oo wuxuu noqday macallin Ingiriis. Haddaba Jack wuxuu isku dayay shaqooyin badan inuu raadiyo laakiin uu waayay. wuxuu sameeyay inuu shaqo tagay shirkadda KFC oo xilligaa shaqaale u baahneed ayaa waxay dalbaday shaqaalenimadaas 24 qof. 26 kamid waa la aqbalay marka laga reebo hal qof. halka qof waxa weeye Jack oo kaliya ee la diiday dadkii oo dhan. haddaba Jack 1990 ay wuxuu soo galay internetka. wuxuu arkay in internetka ganacsi lagu dhex samayn karo oo lagu iibin karo. haddaba Jack ayaa wuxuu asaasay shirkad yar oo lagu magacaabo Alibaba Group. haddaba fikradiisa dad badan way ka soo horjeesteen oo dadku ma maleeyeen in fikradaasi wax dhali doonto. Jack dadaal badan oo uu sameeyay shirkadiisa waxay noqotay shirkad weyn oo faafta dunida daafeedo dhan gaadha. sanadkii 2014 waxay ka mid noqotay shirkadda ugu horeysa suuqa saamiyada ee kala iibsiga alaabaha. Jack waqti xaadirkan waa nin bilyaneer ah, waa ninka iskala shirkadda Alibaba. Jack wuxuu dhiirigeliyaa dhalinyarada oo wuxuu ku booriyaa inay samirka badiyaan oo aanay isdhiibin intay nool yihiin. waxaa laga yaabaa waqtigii KFC uu shaqo tagay ee shaqada keligii la diiday inuu arkay nasiib xumo. waxaa laga yaabaa Ilaahay inuu meel kale kula doonayo. haddii halkan la soo gaadhay muuqaalka asxaabtaada sii gaarsii loo saar page-kana follow noo soo dheh.